السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسودو قناة حكمة. رواندا مرحلة قاتشو إلى مرحلة هرمر. معلومات هردعة وكساب صندلك رواندا جمهورية رواندا وحنا لوجد شيء دالك لها كون كبورات وحنا دعدا بريق أفريقيا جارهانا منطقة لجو مقعبة بدها وين أفريقيا بريق يبرتمها أفريقيا وحنا حدود الله ده دالك كلاه تنزانيا يوغندا جمهورية الديمقراطية كونغو يبروندي caasimadeeduna waa Kigali. sideed xaqaaq oo ku saabsan dalka Rwanda ta koobaad gorilaha Rwanda waa mid ka mid ah meelaha farakutiriska ah ee ku caanka ah nooca gorile bureedka ah kaas oo dalxiisayaal fara badan u yimaadaan inay daawadaan waxaana la sheegaa in 3 meelood oo meel nooca gorile bureedka ah ee ku nool dunida oo dhan laga helo dalka Rwanda. talabaad balastiga laga soo bilaabo 2008 waxa dalka Rwanda laga mamnuucay bacaha balastiga kuwaas oo saameyn taban ku leh deegaanka waxaana ka mamnuuc ah qof kasto tagaya Rwanda inuu la galo bacaha balastiga ka samaysan marka daawade hadaad maalin uun ku haminayso inaad booqato dalka Rwanda iska jir inaad la gasho bacaha balastiga ka samaysan. Kigali waa caasimadda dalka Rwanda waxaana lagu tiriyaa inay tahay caasimadaha Afrika ugu nadaafadda iyo quruxda badan waana magaalo horumarka xagga tiknoolajiga uu yahay kan ugu horumarsan Afrika. dadka reer Rwanda waa bulsho u dhaqnaan jirtay qaab qabiil ah sida Soomaalida. Rwanda waxa ku nool qabiilada kala ah Hutu iyo Tutsi iyo qabiilka Tawa inkastoo labada qabiil ee Hutu iyo Tutsi ay yihiin kuwo isku asal ah oo meel ka soo wada farcamay. dumarka waqti xaadirkan la joogo Rwanda waxay ka mid tahay dawladaha ay dumarku saami fiican ka helaan ka qayb qaadashada siyaasadda waxaana ku tusinaysaa in boqolkiiba 60 baarlamaanka dalka Rwanda ay yihiin dumar. buuraha sida aynu horeba u soo xusnay waxa looga jeedaa magaca Rwanda dhulkii lahaa kunka buurood maadaama ay buuruhu ay yihiin kuwo ku gadaaman inta badan oogada dhulka Rwanda taasina waxa ay ka dhigtay dalkan yar ee u dhow dhulbaraha inuu noqdo cimiladiisu mid dhexdhexaad qabow xigta ah taas oo ka duwan cimilada lagu yaqaanay meelaha dhulbaruhu maro ama khadul istiwaaga. xasuuqii Rwanda 1994 waxaana kamida waxyaabaha aad loogu xasuusto taariikhda dalka Rwanda xasuuqii 1994 halkaasoo qabiilada Hutu ee ugu badan dalkaasi uu xasuuq ba'an u geystay qabiilka Tutsi ee xagga tiraahan ka yar qabiilka Hutu. xasuuqan oo socday laga bilaabo bishii Abriil ee 1994 ilaa bishii July ee isla sanadkaasi waxaana muddada kooban ee 100 maalmood ku dhintay dad lagu qiyaasay 800,000 ilaa 1 milyan oo qof. iminkana waxay ka mid tahay dalalka Afrika ugu horumarsan iyadoo ku haminaysa inay noqoto dalalka caalamka ugu horumarsan iyagoo ka soo saara fakhriga sanad kasta 1 milyan oo qof waxayna ku tala galeen 2024 inay gabi ahaanba fakhriga ka takhalusaan. Niilka wabiga Niilku waa wabiga ugu dheer adduunyada oo dhan waxaana lagu qiyaasaa 6650 kiiloomitir waxa uu ka soo bilaabmaa koonfurta dalka Rwanda